waxaan ogsoonahay in dunidu isbedelaysa maalinba maalinta ka dambaysa waxaana markhaati kaaga ah loolanka wadanada G8ka siyaasadooda ay ku beesgareeyeen tiknoolajiyada waqtiyada soo socda iyo imakaba dhan kasta haddaan eegno dhanka ciidamada waxaad ogsoontahay in dawladuhu ballan qaadeen in ciidamadooda ay ka dhigi doonaan ciidamo bira kuwaasoo dagaal geli kara tiyo aan la wehelinayn waxaad ogsoontahay in maanta jiraan diyaarada laga duqeyn karo meel kasta taasoo aanu duuliyo wadin waxaad ogsoontahay maanta inay gawaari jiraan dareemahaaga ku shaqeynaya haddii aan dib ugu noqono qaababkii wax loo xaysiin jiray beriyihii hore waxaad ogsoontahay in wargeys shirkad kasta ay wax ku xaysiin jirtay ama TV ama radio kuwaasoo ku xaysiin jiray badeecadahooda ganacsatadaas waqtiyadaas joogay hase yeeshee maanta waxaad ogsoontahay inay wax kasta isbedeleen oo loo guuray dhanka tiknoolajiyada waxaad ogtahay in website wax lagu xaysiiyo waxaad ogsoontahay dadku inay online wax ku iibsadaan oo ay ka iibsadaan qaab e-commerce ah website-da waaweyn taasoo lagu keenayo alaab kasta aad iibsato gurigaaga waxaad ogsoontahay in apps la sameeyo taasoo wax lagu iibsado ama badeecadaha aad ku soo bandhigi karto taasoo wax lagaaga iibsan karo ama aad ku iibsan karto waxaad ogsoontahay in dhanka social media heer weyn laga gaaray kaalinta koobaad dhanka social media YouTube ugu haysto waxaad ogsoontahay in WhatsApp-ka wax lagu xaysiisto sidoo kale Facebook iyo Instagram-ka oo isaguna dabiirshideyn sidan hore idinku soo baran qaaday introduction-keegii koowaad fadlan haddaana daawan ku noqo introduction-kii koowaad si aad wax badan uga fahanto waxaan idinku ballan qaaday inuu kooraskani noqon doono albaabka koowaad aad ka geli doonto tiknoolajiyada waa aniga oo Mustafa Cabdi Cabdilaahi oo idin leh ku soo dhawaada casharka saddexaad ee HTML السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودا يا الملك استاذ شوكتان هل كني واجهنا كيني جرتين فلان داودا دتك عصب تاج كان سبسكرايب قريه هدات كمية تاعي أصحابتك وحضرنا فلان نوعاوي لايك سو كرة channel كان ما أنت وحنا سلي قدرنا 10 كيني تحناها HTML أنا ما أنت قلي دونا تحنيه قيبتي صدحات أو كسب بدين دوننا أيامها صعدة وحنا نكون ذلك دونا صدق ودقسيا بدن سنة ولا من لهين سنوكسون هاي 10 كي كوبادي كي لبعض وحنا كسبرنا 10 آدم مهمة أنا introduction key aad si faahfaahin uga bixiyay sidoo kale waxaan dhiganay 10 kii ugu horeeyay anagoo create gareynay website kan aan dul joognay ugu horeeyay maanta website kan aan create gareynay title key waxaan u bixinay wad arkaysaan website 1 ayaan u bixinay oo 10 ka koobaad iyo ka labaad baan ku sharaxaya marka fadlan daawada dadku cusub tahay maanta 10 kan oo kii ugu horeeyay yahay kuwii hore daawo qaar taxanaa weeye playlist-ka waxaan u bixiyay HTML of Soomaali waxaan ku dadaali doonaa sida ugu dhaqsiya badan inaan ku dhameeyo sidoo kale waxaan idinku ballan qaaday inaan marka dhameyn aan projectyo badan soo bandhigno si ay idinka caawiyaan mustaqbalkiina maadaama ay tahay maadadani maada aad looga baahan yahay dunida sida awgeed waxaan maanta eegi doonaa faraha kala duwan ee HTML ka la yiraahdo hidden tags ka la yiraahdo sanad soo nahay waxa jira 6 hidden tag ba jira oo ka bilaabma h1 ilaa h6 h1 ilaa 6 inta u dhaxaysa numberantu waa numberku waa h1 buka bilaabay ilaa h6 number kasta aad arkaysa tiradaas 6 ku ha ugu yaraade size gaar uu leeyahay marka mid kasta waxaan eegi doonaa mid kasta iyo fartiisa ay wuxuu qabto anagoo ku dadaali doonaa mid kasta iyo size ku leeyahay si aan u ogaano kana caawiyo hadhow tole markaad projectyada sameynayso maadaama ay tahay waxaan toolal la baranayo ama code la baranayo oo ka anfacaya hadhow tole markaad wax dhisayso marka h1 ayaan eegi doonaa faa'iidadiisa uu inoo hayo uu naga caawin doono markaan wax qorayno maadaama aan waxaan size-ka farta aad qoraysa ay tahay marka waxaan qoran doonaa this is my first website san hore u qornay marka waxaan eegi doonaa h1 size ku noqdo insha Allah oo markaan furno wad arkaysaa this is my first website waxa inoo soo baxay qoraalkeenan xagaa ku qornay oo far waaweyn qoraalka diiradda saarayna 10ka koobaad ayaan 10ka labaad baan ku sharaxaynaa qoraalkaas halka ka soo baxay laakiin maanta waxaan doonaynaa hidden tags-ka h1 ilaa h6 inaan barano sad arkayso far waaweyn ayuu ku soo baxay waxaan isla eegi doonaa kale size-ka ku xiga oo ah h2 waan soo koobiyay h2 ma ka dhigaya h2 markaan ka dhigo size-ku inuu wax iska bedelay iyo in kale ayaan isla eegi doonaa insha Allah marka page-kii baan refresh gareynayaa marka refresh gareysad arkayso h2 iyo h1 size-ka way ku kala duwan yihiin oo waxa yar h2 marka waxaan eegi doonaa imka
sizeska oo dhammaystiran 1 ilaa 6 waxay ku kala duwan yihiin marka h2 saas uu ku saxsan yahay 3gana waan bedelaynaa 3gana markaan bedelno 4kan ayaan geli doonaa anagoo eegi doona mid kasta baahidiisa aan ugu qabno maadaama markaad wax qorayso aad different sizes aad isticmaalayso waa muhiim inaad barato sizeska kala duwan iyo qaabka loo qoro wasaan horadii ku sheegayna 6 baa jira 6daas waxay noqon doonaan 6daad markasta adeegsanayso markaad wax qorayso waana muhiim aad inaad barato imika waxaan eegi doonaa 6daasi waxay ku kala duwan yihiin waan refresh gareyn doonaa website-keena ugu horeeyay waad arkaysaa kii koowaad kii labaad kii saddexaad kii afraad kii shanaad iyo kii lixaad waxa ugu yar ka lixaad waxaana ugu weyn ka koobaad marka casharkani wuxuu noqon doonaa mid aan diiradda ku saaraynay sizeska kala duwan ee markaad website dhisayso farahad adeegsanayso oo size-ka fartada adeegsanaysan iraahday waana qayb muhiim ah maxaa yeelay waxa dhici karta inaad waxyaabo kala duwan aad ku soo bandhigayso website-kaaga mid kastana far gaar ah aad doonayso anagoo ka sii badin doona maalinta ka dambaysa insha Allah casharka wuxuu noqon doonaa mid aan si ballaaran aan ugu sii galno casharkan anagoo fahmi doona qaybo badan oo kala duwan ilaa aan ka dhameynayno maadadan oo dhameystiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh